qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada ku yaala magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa dhaliilay qaabka markaasi loo diyaarinayo imtixaanaadka fasalada sideedaad iyadoo ay sheegeen macallimiin gaar ah in markaasi iyaga ay diyaarinayaan iyagoo laga tagay macallimiintooda. waa kuwan qaar ka mid ah macallimiinta iyaga eedayntan u jeedinaya wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle iyo wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya in arrintan ay soo farageliyaan. haddana waxaan u wadaagaynaa bulshada gobolka Hiiraan ku dhaqan iyo nawaaxiga imtixaankii loogu talagalay sideedaadka ee shahaadiga ahaa qaabeyshinka uu ku socdo inaanan raalli ka ahayn ayaan ka cadaynaynaa meesha. asbaabaha aan raalli oga ahayn waxaa ka mid ah inuu iskuulkayga anigoo ka hadlahay magaca Horseed primary and secondary ku hadlaya inaan imtixaan u dejiyo iskuul kale, laakiin si walba ay noqotay imtixaankaas sidaas lagu dejiyey inaanan raalli ka ahayn aan bulshada gaarsiinaynaa. waxaan gaarsiinaynaa waalidiintii ilmahooda xuquuqda iyo dhibka ku soo bixiyey. imtixaan la diyaarinayo ama centralized examination la diyaarinayo waxay ku fiican tahay gobolka aqoonyahanno leeyahay. wuxuu leeyahay maxaa la yidhahdaa madax bartuu leeyahay dad ka baxsan gacanta waxbarashada hadda iskuullada gaarka ah loo leeyahay ee dowladda hoos tago ama Hirshabeelle hoos tago yani waxay codsanayaan si gaar ah in gacanta hadda imtixaanka diyaarsi gacan ahayn inay diyaarsi ku qanacsiin howlkooda. haddii gacanta maanta uu diyaarinaysa ay sii wado marka waxaan maanta ka wada midaysanahay in imtixaankaas beri ka nahay inaan beri ka nahay weliba anagu ka hadlaayo magaca macallimiinta weliba deegaanka wax ka dhita ayagaas oo ka mid ah sidaan u aragno xogta imtixaanka meelaha laga ilaaliyo waa macallimiintii maamulayaashii iyo ardayda u fariisanaysay. marka waxaan codsanaynaa in xawashadan maamulayaasha ay jeediyeen wax laga qabto. maaladii Hirshabeelle wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle oo saaranay ee aan sugaynay ayaa ku dhacda. marka saa daraadeed waxaan soo jeedinaynaa wasaaradda Hirshabeelle inay arrintaa ka fiirsato. ma noqonaysa ammaano. waxaa la rabaa waxa imtixaanka qaadaya inay noqdaan dadka wax bara maamulaha iskuulka iyo macallimiinta wax ka dad ka baxsan waa inay diyaariyaan. taasay marka lagu wataa laakiin may qofkii imtixaanka ardaydiisa la tacaamulaya imtixaan u dejiyey ayaa ammaano ah ayaa karti ah ayaa hufnaan ah taabicaysa qofka qofka ra'yiga saliimka qaba naaminaya man suurtagal maahan wax la aqbali karana maaha. haddii aan nahay iskuullada halka meesha isugu nimid waxaan shucuureen ku caddaynaynaa in imtixaanka marnaba u noqonayna cadaalad iyo mid ku dhisan sinaan ee bulshada aynan aaminayn. waxaan soo jeedinayaa wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle oo wasaaradda ay aad u jecel nahay in ay ra'yigan ugu noqoto. ma ogolanayno man aqbalayno iskuul magaalada Beledweyne ku yeelo inuu iskuul kale imtixaan ka qaado. wasaaraddu waxaan leenahay waa inay arrintaas u istaagto, waa inay wax kala bato. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare aan u gudbinaynaa inaan marnaba aan aqbalaynin imtixaanka ay diyaariyeen wasaaradda Hirshabeelle wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle kaas oo ah imtixaan dadban oo aan si hufan aan loo diyaarinin. wasaaradda Hirshabeelle waxaa ka rabnaa horumar gobolka Hiiraan iyo horumar sameeyo dhanka waxbarashada horumar ka sameeyo oo laga ilaaliyo dhanka waxbarashada iyo dhan kastaba dowladda Soomaaliyeed musuqmaasuqa iyo waxa la dhigay oo ka reebay istaagoodii ka reebay. waa markii ugu horeysay ee waxbarashada lagu eedeeyo in dhinac gaar ah iyaga ay diyaarinayaan imtixaanka loogu talagalay inay ka wada qayb qaataan ardayda wax ka barata iskuullada ku yaala magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta Wadani TV.